على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. marka hooyada waxay ahayd gabadheedii inay ku yeelatay raad ama sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam hadaynu u leexadno nabiga kaleey salaatu wasalaam ahadiistiisa wax baynu ka sheegnay laakiin waxaan soo qaadanaynaa isaga nabiga kaleey salaatu wasalaam nabigeena kaleey salaatu wasalaam maqaamkee bay ka joogtay hooyo waxaan ognahay nabigeena kaleey salaatu wasalaam inuu aabihiis waayay isagoo uurka hooyadiis ku jira dabeedna hooyadiis Aamina bint Wahab ay soo korisay markii si hore isagoo 7 jirana hooyadiis haddana inuu waayay nabiga kaleey salaatu wasalaam agoon iyo rajulnimo isugu darsantay nabigeena kaleey salaatu wasalaam laakiin waa ka hadlay hooyada maqaamka diinta ilaahay ka joogto من حق الناس بحسن الصحابة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ومد كاين إنك جهادك أسعدي ألك أم قال نعم قال فلزم رجلها فثم الجنة ومن كاين النبي عليه الصلاة والسلام نكويمي جهادك دوني إن أراعه أو كيري ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد إياك كجهات بيو بارهن مضوضة إيا وناقود إيا حسان كود وحاول مرينا يا الإمام مسلم رحمه الله تعالى نبي عليه الصلاة والسلام مركي وبحي فتح مكة إنه صومري منطقة الأبواء أبواء وحوي ميل مكة إيا مدينة أدو حيصة حق مكان أدو oo ay ku duugan tahay ama ku aasan tahay nabiga kaleey salaatu wasalaam hooyadiis meesha ku dhimatay weey halka markuu marayay ayuu nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ka haystay kun asxaabtiisa kamida oo ciidankiisa kamida ciidan 10 kun oo la socday kun nin oo kamida ayaa raacday nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu tagay qabriga hooyadiis uu ku dul ooy oo hin aad u dheer أيو النبي عليه الصلاة والسلام وحبذا أوي أي أصحابتي سينا أويسي رضوان الله عليه مركز وحكوية إلهي سبحانه وتعالى أي وحن ويديست قبري وهو يدي إن نزو زيارته ونا إيه أقلال سو النبي عليه الصلاة والسلام ويني waxaan kala weydiistay wiil inaan u istighfaar dalbo maadaama gaalnimo ku dhimatay in aan istighfaar ilaahay u weydiiyo dambi dhaaf weydiiyo taasna waa la ii diiday nabiga kaleey salaatu wasalaam maqaamka hooyo ka joogto halkaas hadii aan u nimaadno markaa ikhwaani baarinimada la sheegay maxay tahay sidee baari loogu noqon karaa hooyada kow baarinimadu waxa weey nooceeda ugu horeeya ilaahay uu nafaray waxa weey albirru bisuhba albirru bisuhba la jiritaan weey la jiritaan hooyada la jiro laga ag dhawaado la socdo loo adeego loo khidmeeyo waxa ay u baahan tahay la dul taagnaado biriga meesha ugu sareysa taas way waana tan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala u nafaray wa saahibhuma fi dunya ma'rufan wa bil walidayni ihsana بعضاس واحد هان علماء وباء المصحبة لغة عربية وحلا يراهذا والوالدين إحسانا من يدهن الله سبحانه وتعالى وحير وبالوالدين إحسانا مركا والله صعش لجريد ويه هذا لجريسو وهذا صعوته لجرته إذن بارهن ماذا كواد
loo baahan yahay waxa weeye qofku inuu ka agdhowaado la socdo la deganaado ama dhinac deganaado khidmadeeda u go'o ahamiyad weyn siiyo ama xoog saaro inuu u khidmeeyo waxay u baahato meeshay doonto in la geeyo si aad adigu ugu qaban kartid si aad baarinimadii u fali kartid arrinkaasu dabcan dadka waa ku adag yahay oo qofka qaar wuxuu doonayaa inuu iska shaqo tago qaar wuxuu doonayaa inuu tacliin meel fog ka raadsado qaar wuxuu doonayaa inuu xaaskiisa iyo cilmihiisa meel kale ula guuro qofba danuu leeyahay adduunka laakiin qof walba intii dee jannadaas la yidhi lagu heday taalla uu doonayo intii ay dani ka hayso jannadaas ayuu uga tanaasulayaa ama uga tadxiyeynayaa waxyaalaha kaleeto saas darteed culimo badan iyo dadkii wanaagsanaa dad badan oo ka mid ah waxa u diiday inay safraan waxa u diiday inay wadamo fogfog aadaan waxa u diiday oo ka hor istaagay inay jaamacado ama cilmi meelo fogfog u raadsadaan waxa u diiday waxa weeye inay waayaan la jiritaanka hooyadood saas darteed ayay waxay tahay arrin sharci ah oo diintu ina farayso in laga idin dalbado markii la safrayo hadduu qofku cilmi u baxayo ama shaqo u baxayo hooyadii uu ka fogaanayo waa inuu idin weydiistaa haddii uu jihaad aado waa inuu idin weydiistaa haddii jihaadkii idinkeeda lagu xiray acmaasha kale o dhan maxaad ka malaynaysaa oo ah inaad shaqo u baxdo ama tijaaro u baxdo ama wax kale u baxdo idinkeeda in la qaato wey loo tago saas iyo saasaan doonayaa hooyo inaan u baxo meeshaas iyo meeshaasaan rabaa inaan u baxo hadday diiddo amarkeedaa soconaya haddii aad rabto inaad ku qanciso waa inaad iyada qancisaa waa inaad iyada raalligelisaa waa inaad iyada ogolaansho ka heshaa ogolaansho inaad ka hesho oo saad ku raalligelin lahayd aada raadiso oo aada sasabto marka albiru bilmusaaxaba waa darajada ugu sarraysa waxay caawa ku seexatay inaad ogaato waxay cuntay iyo waxay cabtay inaad ogaato gacantaada haddaad ku siin karto aada ku siiso gogosheeda adigu aada ogaato waxay ku sugan tahay aada ogaato albiru bilmusaaxab wa saaxibhumaa fi dunyaa macruufa alzam rijlaha lugteeda hoosteeda joog meesha uu nebigu calayh salatu salaam u leeyahay lugteeda joog u adeeg u khidmay waa biriga darajada ugu sarraysa waana darajada loo baahan yahay qofka doonaya jannadaas inuu helo ducada hooyadu ma aha afka keliya dadka qaar baa waxay isku qanciyaan ama isku raaligeliyaan hooyada inay yidhahdo hooyo noo soo ducay hooyo noo soo ducay maandheena waa idin duceeyey ordaya tagmida laysa hada saxiix adaa lagaaga baahan yahay inaad ogaato ducadu marka ay tahay duca dhaba oo qalbiga ka soo go'day xataa haddaan afka lagaga hadlo iyo inay tahay duco raaligelina hooyadu marna habaartami mayso marna niyad kama aha inay ku habaarto ama ilmeheeda ay nacdo marna niyad kama aha waayo qalbigeedu nacaybka ma yaqaan qalbigeedu nacaybka ma yaqaan saan sheegnay dhab ahaan xataa haddaad u malayso markay ku haaraamayso ama ay ku habaarayso ama ay ku caynayso ama ay hadalka kugu adkaynayso inay ku nacab tahay haddaad u malayso ma aha saxa niyaddeeda iyo qalbigeeda ma jirto saas darteed dadka qaar ba waxay isku qanciyaan waa ii ducaysay dabadeedna hawshiisa iska wataa taasu baarinimada heerkii laga rabay maaha waa nooc baarinimada ka mida oo waxay ka fiican tahay qofka caasiga ahoo aanba soo agmarihayn ama aan taleefonka xataa usoo dirihayn ama aan soo ziyaaranayn bay ka fiican tahay laakiin heerkii baarinimada ahaa ee jannada la rabay ilzam rijlahaada ahayd ma aha ilzam rijlaha luzuumku waa inaad laazimto wey oo caawa waxay ku seexatay
saaka waxay ku bariday aad subax iyo galab soo marayso abu hurayra radia allahu canhu wuxuu ka mid ahaa dadkii aadka baariga hooyadiis ugu ahaa dadkii aadka baariga hooyadiis ugu ahaa hooyadiisna markii hore ma soo islaamin dabeedna nebiga calayh salatu wasalaam maalin isaga oo la hadlaya ayay hadal xun nebiga calayh salatu wasalaam ku tiri koo muslimad ma yan ahayn markaa isagoo oynaya ayuu nebiga calayh salatu wasalaam u yimi markaasuu yidhi abu hurayra maxaa kaa ooynay ya rasuul allah hooyaday ayaan u tegayo hadalkaa xun bay ku tiri ee rasuulkii allow usoo ducay inuu ilaahay soo hanuuniyo hooyaday fiiri wiilka baariga ah wuxuu ka walwalayaa hooyadiis in ilaahay hanuunkeeda u keeno qaar badanoo inaga mida ma danayaan hooyadood inay soo hanuunto inay cibaado yeelato inay wax barato waxaa laga yaabaa inaan danayn wuxuu yihi rasuulkii alla usoo ducay hooyaday inay ilaahay soo hanuuniyo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam saanagu nahay wuxuu ahaa naxariis kulligiis ma ahayn mid nacayb badan dadkoo dhanna inay soo hanuunaan gaaloo dhan ayuu jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saas darteed wuxuu yihi ilaahu soo hanuuni abu hurayre hooyadiis ilaahu soo hanuuni qabiilkiisana wuu u duceeyey mar kale nebigu calayhi salaatu wasalaam oo mar la yidhi nimankii dows way caasiyeen ee rasuulkii allow habaar wuxuu yidhi ma habaarayne waxaan leenahay allaahuma hdi dowsan wa'ti bihim ilaahu dows nimanka la yidhaahdo ama qabiilka la yidhaahdo ilaahu soo hanuuni oo ilaahu noo keen ayuu nebigu calayh isalaatu wasalaam abu hurayre hooyadiis marka nebigu calayh salatu wasalaam wuu u duceeyey abu hurayre wuu soo noqday gurigii buu ku soo noqday maruu gurigu ku soo noqday iriddii hooyadiis u garaacay ayaa waxay ku tiri abu hurayre bannaanka istaag oo sug ha soo gelin maxaa dhacay biyihii buu maqlay ay qubaysanayso intuu soo socday ayaa ducadii nebiga calayh isalaatu wasalaam ilaahay ajiibay hooyadiis way soo islaantay abu hurayre isagoo oynaya mar labaad nebiga calayh salatu wasalaam ku soo noqday laakiin marka kan farxad la oynaaya farxad isagoo la oynaayo lo rasuulkii allow hooyaday ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo hanuuniyey way soo islaantay abu hurayra markaa waagii dambe mar buu madax ka ahaa madiina ama mas-uuliyaddeeda looga tegi jiray dabadeedna magaalada meel bannaankeeda ah buu deganaa madiina subaxdii markuu guriga ka baxayo oo shaqada u socdo gurigii hooyadiis waa ku dhegan yahay ayuu soo mari jiray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu yaa ummi hooyadiisu salaami jiray markaasuu wuxuu ku ohan jiray raximaka allaahu kamaa rabbaytanii sagiiran raximaka allaahu kamaa rabbaytanii sagiira hooyoy ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuu naxariisto sidaad yaraantaydii iisoo tarbiyaysay markaasay waxay odhan jirtay wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu wiilkaygiiyow adigana ilaahay ha kuu naxariisto sidaad adigoo weyn iigu baari fashay marka hada albiru bilmusaaxaba waxay noo sheegtay caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala canha waxay tiri laba nin oo madiine joogay hooyooyinkood way ka tilmaanaayeen sida ay baari ugu yihiin ninna waxaa la odhan jiray cuثmaan ibnu cafaan waa khaliifadii saddexaad ee islaamka radia allahu canhu aad buu hooyadiis baari ugu ahaa ninka labaadna waxaa la odhan jiray xaariثaة ibnu nucmaan in ansaari uu ahaa xaariثaة ibnu nucmaan markaa ninka xaariثo la yidhaahdo waxay tiri hooyadiis timaha ayuu u shallayn jiray timaheeda ayuu u shallayn jiray wuxuu ka guri jiray qandhecelka iyo saxarada iyo waxaasoo dhan buu ka guri jiray wixii saxaro saaran wixii ciidu saaran waxaasuu ka guri jiray madaxuu ayuu u maaragtay u duugi jiray dabadeedna nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan galay habeen jannada markaan galay ayaan waxaan maqlay nin qur'aan akhrinaya
markaasaa idhi war ninkan qur'aanka akhrinaya muxuu yahay jannada dhexdeeda markaasaa la yidhi waa xaarithatu bnu nucmaan xaarithatu bnu nucmaan waa bishaaro ninkii ugu bashaareeyey jannada markaasuu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam kadalikum اlbiru kadalikum اlbiru kadalikum اlbiru war hooy baarinimadu saasay wax yeesha war hooy baarinimadu halkaasay wax gaarsiisaa war hooy baarinimadu halkaasay wax gaarsiisaa taas waxaa la yidhahdaa baarinimada bilmusaaxaba culimadii haddaynu ugu noqonno salafkii ridwaan ullaahi calayhim iyo dadkii saalixiinta ahaa calaa mari taariikh haddaynu dib ugu noqonno waxaynu arkaynaa waxyaale cajaa'ib leh albiru bilmusaaxaba nin la yidhahdo moxamed ibn munkadir oo culimada muxadisiinta ah waaweyn ka mid a ayaa wuxuu u sheegay habeen inuu habeenkii oo dhan u baryey isagoo hooyadiis lugaha u duugaa lugaha ayuu u duugayey u tutuujinayay habeenkii waagu sidaasuu ugu baryey nin walaalkiisina habeenkii salaatuleyl buu tukanayay markaasuu wuxuu yidhi moxamed raximahu llah haddii la yidhaahdo buu yidhi caawa ninkan habeenkan salaaduu tukaday walaalkay iyo hooyaday lugaha aan u tutuujinayay dhaafso habeenkaaga habeenkiisa ajarkiisa ma dhaafsadeen buu yidhi wallahi na dhaafsadeen habeenkii o dhan salaadda u tukanay ma dhaafsadeen lugaha aan u tuujinaya hooyaday طalq ibnu xabiib nin la yidhaahdo isaguna ka mid ahaa dadka saalixiinta ah ayaa hooyadiis waxay tihi or طalqow biyo ii keen waa nin culimo ah weyn adigu laakiin hooyada agteeda culimo kama tihid hooyada agteeda mudiir ama manager ama director kama tihid hooyada agteeda hani kama tihid gabar baan u keenayaa u shaqaysa oo yacni khaadimad ah kuma filna arrinkaas saxna maaha adaa la rabaa inaad u adeegto marka ninka caalimka ah hooyadiis waxay tiri ord biyo ii keen uu kacay biyihii buu u doonay biyihii buu soo qaaday biyihii isagoo wada ayay seexatay hurda qaaday inuu kiciyana waa diid habeenkii o dhan buu dul taagnaa raxmat ullaahi caleyh ilaa ay iyadu ka soo kacdo waa sida xadiiskii laynoogu sheegay ninkii caanaha la dul taagnaa labadiisii waalid ee ilmihiisii ay gaajaysan yihiin ay hoostiisa joogaan ee u diiday caanaha inuu dhadhansiiyo ilmihiisa iyagoo qaylinaya oo aabbow caanaha nasi aabbow caanaha nasi aabbow waa gaajaysanna ay leeyihiin ayuu u diiday caanaha inuu ilmaha u taago baarinimadu taasaa la yidhaahdaa bilmusaaxaba marka adigu waad yeeli kartaa way bannaan tahay inaad ilmahaaga siiso caanaha hadday hurdo sharci ahaan way bannaan tahay laa isma caleyk dembi maaha laakiin waxaa laga hadlayaa darajaad iyo tanaafus weeye baarinimadu baarinimadu waa tanaafus camal nawciya waay waa special shaqo speciala way haddaad doonayso inaad qabato baarinimadu baarinimadu maaha kelimad afka ah marka ninkaasu habeenkii o dhan buu taagnaa biyihii la taagnaa ilaa hooyadiis ay ka soo kacdo markaa biyaheedii u siiyo albiru waxaa la yidhaahdaa bilmusaaxaba waa darajada u sarraysa waxaa biriga dabcan ka mid ah in uu nafaqeeyo xoolihiisa oo dhan hadduu ku bixiyo xoolihiisa oo dhan hadduu siiyana inaanu waxba ka gudi karin abaalkeeda hadday tiraado xoolahaaga oo dhan akownkaaga waxa ku jira oo dhan ii keen caaw way xaq bay ugu leedahay saas darteed waa inaad hooyada u gacan furnaataa iyadaanba ku weydiisanayn akownkaaga o dhan iisoo xaaqa iyadaanba ku dhihi lahayn akownkaaga o dhan iyo mushaharkaaga o dhan ii keen maba dhahaysaba naxariisteeda ka weyn laakiin adigu waxaan la yaabaynaa dadka qaarkiis wuxuu qaataa $5,000 $3,000 $4,000 $100 oo hooyadiisu u diro ayuu maanta o dhan ka sheekeyn $100 waaya $100 u dira ama $200 hooyaday waa masruufaa hooyaday waxbaan siiyaa maxay uga baahan tahay intaa ka badan duq weyn waaye maxay uga baahan tahay su-aalaha marar badan ii yimaada oo leh hooyaday lacag baan u diraa lacagta waxay siisaa dad kale radeerow adiga ama ha siisa ama yay siin adu xorriyaddeeda u dhaaf maxaa kugu jira ama ha siiso ama yay siin
adigu ha fiirinin waxa iyada asisay waxaad fiirisaa waajibka adiga ku saaran iyo baarinimadu waxa ay tahay dad baa daarahooda ka waaweyn u dhisa oo aan waxba ka sheegin oo aan waxba u arag oo inay raalli ka noqoto keliya raadinaya baarinimada raadinaya idan bilinfaaq maaha inuu qofku wax ka lexe jeclaysto hooyadiis iyadu wax kaama lexe jeclaysan jirin hal jazaau lixsaani ila alixsaan hal jazaau lixsaani ila alixsaan intay iyadu bixin jirtay lagaama rabo intay dul qaadan jirtay ma awoodi kartid ma bixin kartid ma yeeli kartid laakiin wuxuu yar ka gudo cabdullaahi ibni cumar ayaa wuxuu ku arkay nin xajka tawaafaya hooyadiisu dhabarka ku sidaa wuxuu yidhi cabdullaahiyow hooyaday waxaan ka keenay yaman dushaanna sidaa ugu siday xaramkaan keen haddana waad u jeeddaa dushayday saaran tahay waan dawaafinayaa xaqeedii ma guday buu yidhi xaqeedii ma guday camal wanaagsan baad samaysay buu yidhi nin fiican baa tahay camal wanaagsanna waad samaysay laakiin hal haraanti markay ku dhalaysay ma aadan gudin foosha markay ahayd xanuunkeedii foosha xanuunkeedii hal haraanti oo ka mid a ma aadan gudin buu yidhi dushaad ku soo qaad midda labaad iyadu waxay dusha kugu qaadi jirtay buu yidhi iyadoo jecel inay dusha kugu qaado adiguna waxaad dusha ku sidaa adoo leh goormay kaa degaysa iyo goormaad iska dhigta marka waa kaafiya kala dheeri isuma dhowaa labada qaadnimo ayaan isu dhoweyn waxaa ka mid ah beriga inaad u hormarto waxa ay jeceshahay iyo waxa iyada raalli gelinaya ee wanaagsan haddaanu dembi ahayn waa inaad raadisaa maaha inaad sugto intay ku weydiisanayso maaha inaad sugto inta ay kaa dalbanayso maaha waa inaad ogaataa waxa ay jecesha meelaha ay jecesha waxyaabaha ay jecesha cidda ay jeceshahay inay siyaarato dadka ay jeceshahay inay la sheekaysato waxyaalaha ay jeceshahay inay cunto ama cabto ama xirato waa inaad ogaataa dabadeedna aad u orodaa oo u tartantaa intaanay ku weydiisan aad u keenta tiraada hooyo kan adaan kuu keena hooyo kanna adaan kuu keena waa waxyaalaha aad og tahay inay jeceshahay hawadeeda inaad u tartanto hawadeeda inaad uga hormarto baarinimada noocyada ka mida oo ugu wanaagsan oo aad ugu dhowaan karto raallinimadeeda qalbigeeda aad ku hanan karto waxa weeye inaad ogaato maxay jeceshahay maxay waxyaalaha ay ka heshaa maxay yihiin haddaanay macsi ilaahay ahayn ama sharciga ilaahay mamnuuc ku ahayn inaad horey ka samayso oo intaanay ku weydiisan aad uga hormacdo waxaa ka mid a baarinimada aad ku heli karto jannadeeda iyo ducadeeda in laga hormariyo ilmaha iyo xaaska arrinkan musiibo weyn baa ka taagan arrinkan musiibo weyn ayaa ka taagan hooyooyinkii waa la ilaaw ilmihii iyo carruurtii maanta oo dhan la daba socdaa ma lihin ilmaha iyo carruurta hala dayaco maayo iyaguba xaq bay kugu leeyihin iyaguba xaq bay kugu leeyihin laakiin waxaan ka hadlaynaa priorities xagga baarinimada xagga raaligelinta hadday cunto noqoto hadday wax siin noqoto inta kuwan aadan siin iyada inaad ku hormarayso wey haddii wax la cabaayo cabitaanka iyadaa ku hormaraysa haddii wax la cunaayo iyadaa ku hormaraysa haddii cid la salaamayo madaxa laga dhunkanaayo iyadaa ku hormaraysa haddii cid la ziyaaranaayo iyadaa lagu hormarayaa safar baad ka timi waad ziyaaranaysaa gurigaaga intaadan marin iyadaa ka horeysa inaad iyada ziyaarato marka hore ilmahaaga iyo
xaaskaaga iyo ehelkaaga inaad barto weeye sida hooyada baari loogu noqdo adiguna qudwo aad ugu noqoto waayo ilmahaaga tarbiye ayay u noqonaysaa ilaahay xaggiisana waxay noqonaysaa sidaad adigu hooyada baariga ugu tahay inuu ilaahay iyaga baari ikhwaani akhawaati waxyaalaha aan maqlayno gabdho hooyadood hadalka ku celinay wiilal hooyadood hadalka ku celinay dad hooyadood nooshahay oo aan fursada ka faa'iideysanay wallaahi aladii laa ilaaha hayruhu kiinii hooyo leh maanta ee aan ka faa'iideysanayn maalin buu ka shalaynay kiinii hooyo leh ama tiinii hooyo qabta ee aan ka faa'iideysanayn maalin buu ka qoomamaynaya hooyada marka la waayo agoonnimo lagama weynaado haddaad 40 jirtay iyo haddaad 50 jirtay oo hooyadaa tagto oo aanay kula joogin agoon baad noqonaysaa nacam agoon baad noqonaysaa waayo ajarkii kuu socday iyo khayrkii iyo ducadii ayaa kaa go'aysa dadka fursadda haysta waxaan leeyahay fursadda iyo iska dayicin kuwa fursadda haysta waxaan leeyahay fursadda iyo iyaga cadaab ku noqon oo af lagu celiyo hooyooyin la oo ka qaylinaya ilmahoodii inaanay ka heli karin maandhow ama maani kaali meeshaan igey kaali gaariga igu qaado halkaa igey ayay ka dalbanaysaa mashquul baana saaxiibadiis ama saaxiibadeedna saacaday la fadhiisanaysaa ama saacaduu la fadhiisanayaa ma dhahayo mashquul baan ahay arrinkaas waa ayaan darro waa tawfiiq darro tawfiiq la'aan weeye yaa ikhwaani kiinii haysta fursad buu haystaa suu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ragima anfu uma ragima anfu uma ragima anfu ha dulloobo oo garhka ciidda ha la galo afka ciidda ha la galo qofka hooyadiis ama aabbihiis ama midkood uu nool yahay oo aan janno gelin